waxaanu doonaynaa inaanu waraysi dhinacyo badan taabanayaanu ka qaadno injineer garaad cabdinaasir oo ka mid ah garaadada reer Somaliland. marka hore waxaan doonayaa garaadku bal dad fara badan oo daafaha dunida ka daawanaya inuu isbaro garaadku halkuu ku dhashay, halkuu ku barbaaray, waxbarashadiisii. bismillaahir rahmaanir rahiim. aad baad TV-ga qaranka u mahadsantihiin. waqti dheer bay horta inagu qaadanaysaa haddii aanu ka hadalno background-kaygii, laakiin anigu magaaladan aan ku dhashay. anigu Hargeysaan ku dhashay. iskuulka labada iskuul ee hore halkan aan ka baxay. secondarygaygii baan xamar ka bilaabay iyo wixii hadday jaamacad ahayd iyo haddii ay shaqo dawlad ahaan lahayd dadkii wasaaraddii arrimaha dibadda waqtigaa u shaqayn jiray baan ahay. de markaas sidii qurbahan aan ku imid haddii aan idinka sheekeeyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaan waxaan ka ahaa dee nin ka shaqeeya. bedel baan waxaan ku imid safaaraddii Soomaalida ee markaa West Germany baa la oran jiray bariga ku taalay Bonn baa la oran jiray. meeshaas 3 sano ayaa iigu dhamaaday iyadoo wadanku dawladdii taagan tahay baan anigu iskaga tagay markii ay nala soo gudboonaadeen ama dadkii markaa safaaradda ka shaqeynayay u dhashay hadda waa Somaliland markaa waqooyi reer waqooyi baa la oran jiray. dhibaatooyin nala soo gudboonaadeen ayaan markaa anigu waxaan goostay inaan ka tago. horta markaasaan anigu Yurubta galay, markaasaan Yurubta kale nafteedii wax ka sii bartay, caruur iyo xaas iyo reer ku yeeshay. intii dambana la dhamaan deganaa oo anigu dadka qadiyadaha badan ma yihi. dadkuna midun bay ugu yaqaanaan taasun bay marka dambe iyagoo ordaya intii igu yimaadaan yiraahdaan waniyahow waqti horaad adigu dee dadka isha dheer ee wax hore arkaad. anigu runtii ama reer waqooyi dadkana la isku yiraahdo ama Somaliland la isku yiraahdo ama magac kale haddii hadhow rabaan hala baxaan anigu horta xaggaasuun baana. waxyaabahan iminka soo baxay 30 sano ee magacyada kala duwanna niyahow ka yar badowaan homa aqaano. anigu reer waqooyinimada iyo laankaas ay ugu dheer dadka sidii ay iskula wala jaan qaadi lahaayeen. taasi waa mid kaliya mid u taala maahe, waa mid dadka dhan u taala. waxay u taalaa dawladda, waxay u taalaa shicibka, waxay u taalaa culimada. taas baa anigu ka duulaya keentay arrimaha bari way iska yar cakiran yihiin. meeshana haddii aan la abaarin waxa dadku tabanayaan iyo meeshu waxay u baahan tahay iyo waxa siyaasiyiintu rabaan dee arrintu weligeed halkaas bay ka taagnaanaysaa. dadku markaa waxay rabaan horumar, nabadgelyo, in iyaga oo meeshooda jooga waxooda ka Hargeysa jooga uunan ku tagrifalin oo waxooda halkooda loogu geeyo. de markaa annagu taas baan u nimid. dawladduna waana ogtahay inaanu joogno oo iminka 4 bilood iyo barkii tagay ragga dawladda ugu sareeya ilaa heer madaxweyne cid aanan is arag ma jirto. mid kastana waxaan uga waramay dadku waa ku weydiinayaan, waxay ku oranayaan garaad waad soo noqotay maxaad waday. de anigu waxaan ugu jawaabaa anigu waxaan waday nabadgelyo iyo horumar iyo sidii dadku gacmaha isku wala qabsan lahaa. taasun baa anigu aan waday. iyaguna si fiican bay runtii ii soo dhaweeyeen. anigu reer Hargeysihii horaan ahay. garaadeen sida aad la socoto buuhoodle bariyeen waxba ka jiray. baasha uu ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka xagla toosiyay isaguna door muhiim ka qaatay niman badan oo reer Somaliland oo ka soo jeeda halka. bal adigu aragtidaada buuhoodle ka waran. magaalada ugu weyn waa Buuhoodle, magaalada ku xigtaa waa Woodwood, magaalada ku xigtaa waa Saaxdheer iyo de magaalooyin kale oo aad u tiro fara badan. sidaa darteed magaaladaasi de waxa weeye gobolada hawdka waa magaalada ugu weyn. magaalada dad badan baa degan ama xagga Itoobiya ka soo yimaadaan ama dadkii deegaankaba ha noqdaan. marka magaaladaas sidii gudoomiye baasha uu sheegay waa run 3 maamul baa jooga oo 3 maamulba ay rag madaxoo sare soo dirsadeen. anigu markaa 3 maamul maxaad ka wadaa? 3 maamul waxaan ka wadaa kuwa Puntland dad wasiiraa way soo diraan
dee adigu waa yimaadaan waa noqdaan Somaliland dee mowqifkeedu waxa weeye Somaliland mar haddii ay tiraahdo ama tiri xadkayaga intii la isku oran jiray muxuu ahaa Somaliland ayaanu dee soo xidhaynaa ama aanu kasbanaynaa dee horta waxay u taallaa Somaliland iyo dawladda ka magaalo ahaan haddaan dib u soo noqdo magaaladu population aad fara badan baa degan siyaasadaha aan idiin sheegay ee group qoladan Puntland u ololeeya waa joogaan khaatimo waa joogtaa iyo Cali Khaliif groupkiisii Somaliland dee waa badarkiisa xagla toosiye iyo wafdigii halka ka tagay marka wasiir xagla toosiye dee waa tii dawladdu dirtay dadaal badan buu sameeyay laakiin dee anigu haddii aan xagla toosiye ahaan lahaa waxaan samayn lahaa waxaan isku dayi lahaa sidii Cali Khaliif marka Puntland iyo laga yimaado dadkan kale sidii Cali Khaliif ee odayaasha meesha jooga ay bal noogu kala way magaalada ninba dhinac inuu ka degan yahay waan ognahay sidii uu u bilaabi lahaa isagu oo xagla toosiyay inuu Cali Khaliif hadal la bilaabo oo Cali Khaliif iyo isagu intay soo fariistaan uu yiraahdo war Caliyow anigu waxaan ka imid xagaas iyo Hargeysaan ka imid anigu wanaag iyo sharaf baan rabaa meeshan dhibaato waa tii markii hore ka dhacday wadinkii ogaa dhibaato dambe ma rabno iyo isjiijid kale iyo wadankan inuu horumar gaaro dhakhtaradiisa iyo haday wadooyinka tisay arimahaas iyo wixii ka sii halmaanaan rabnaa hada waa xagla toosiye hadaan anigu ahaan lahaa Cali Khaliif anigu waan ku celceliyay waa muwaadin horta nin Somaliland waligii intaan arkayay ceeb iyo de wax kale ku tuura ma aha anigu Cali Khaliif ka jifa ahaan haddaan ku taageerayo aniga waa in adeerkay ka jifa ahaan haddaan ku taageerayo anigu horta qabiilaystamay aabahay waa Cali Khaliif iyo aabahay waa saaxiib waa ragii khaatimo sameeyay waxaan siyaasadda horta waxaan idin sheegaya dadka dee ceebna ma aha qofku qadiyadiisa dee wax weeye inuu qariyo ma aha hadii kale dee wuxuu qofkii noqonaya dee qof aan qadiyad lahayn marka Cali Khaliif aniga waa adeerkay ama dad isagaan isugu dhowleh anigu marka dee horta nin weyn dee sharaf dhacbay ii tahay inaan intaan saxaafad soo fariisto kritis gareeyo laakiin Cali Khaliif waxaan anigu oranaya ama baaqan meeshan uga diray wax weeye war Caliyo xamar waxa joogay laba professor adna ka saddexaad baad ahayd mid waa Buuba oo waa saaxiibka Buuba Dubai buu intii ugu dambeysay joogay halkan uu ku soo socdaa ninna waa ninkii hore saaxiibka muxuu ahaa Samatar professorka afraad ina Samatar isaga khadkeena ugu ma jiro Caliyow labada professor haddii xamar intay arkeen madaxdoodii ay intaasoo sannadood la soo dhiiltameen oo ay Caliyow iyaguba arkeen in meeshan waxba aan looga ogolayn dee haddii markaa Caliyow adiga wax lagaaga ogol yahay dee waxaan ku oran lahaa dee bal aanu aragne bal dee iminka adiga naftaadu in dooraad koonfur joogtay ama prime minister ka noqotay wax weyn oo dee meeshii ay ku siiyeen anagu maanu arag sidaa labada professor loo galay ayuunba dee adigana ama ay kuu geli doonaan ama kuu galeen anigu markaa professor Cali Khaliif dadka Somaliland waxaan leeyahay professorku waa professorkiini waligiin critic iyo tan qadiyada ah war anigu Soomaali weyn baan rabaa taas dee wax weey rag badan oo beesha dhexe kartisan xamar waa joogaan qisada way sheegaan Soomaalidan dee isaguna fikirkiisa xaq buu leeyahay waxaan doonayaa garaadeen si aqliyad aqoon ku jirta ka muuqata hadalkaaga dad fara badan ma doonayo oo ku daawanayo ka daawanayo boohoodlay meel walba waxaad ka dhawaaseen khaatimo aabo aasaasay marka maadaama Cali Khaliif adeeraanaad la talisay
aabba kala fikir baatiinada Soomaaliland baa tahay dhaba aabbana wadagii khaatimo gacanta ku haya marka Soomaaliland aabba sawir ma ka siin kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaaliland raggan waa rag aad u waaweyn oo mas'uul ah waa waaye arag ruug cadaaya Soomaaliland bay u taalaa sidii ragga ay wala garanayaan oo de raggii Allahumma salli ala Muhammad ruug cadaaga halkan la oran jiray sidii ay u kasban lahaayeen annaga haddii farsamo naloo ka baahdo iyo u kala dabqaad garaadka u tag professorka u tag dee annagu taa oo waddankayagiiyo dee wax dhibaataa annaga taasi naguma hayso laakiin dawladda waa inay ka soo go'daa gogol ayaa maalin dhaweyta lagu yiri Cali Khaliif baa dhigay gogol ma aha beesha dhexe uu dhigay gogosha wuxuu u dhigay qadiyad dadka halkaa dega ee magaca dhulbahanta huwan sidii iyaga naftooda oo tafaraaruq iyo arrimo ay iska jiraan uu iskugu keeni lahaa taa nafteedu meel kasta waxa uu wanaagsan dad mida hadduu markaa taa heli karo anugu oran maayo dee dadkoo dhani waa wala khaatimaysan laakiin haddii uu cayaarayo war dadka sidee aan hal meel iskugu keena dee Soomaaliland baa horta taa nafteeda waqti hore inay sameeyay laga garaad waa si wanaagsan sidaad ka warqabto Soomaaliland imika way dhowri 20 jirsatay hadan 26 sano baa ahayn Soomaaliland sidaad ka warqabto ila dawladda cigaal xeer jajabaa lagu soo noolaa oo nidaamkii hab beeleedka imka nidaamkii habka dimuqraadiga oo qof iyo codkii xisbiyada badan baa la maraya waxaan doonayaa dib ugu noqono sidaad ka warqabto bari dawladda cigaal inta badan naas nuujin baa lagu hayay siyaasiyiinta gobolka Sool oo hadii ay cigaalna u dhaqaale fara badan huray waxa la soo gaaray waqtigii Soomaaliland lagu heeday isku taagtay marka imika waxaan doonayaa walaalo in dad fara badan oo siyaasiyiin oo mabaadi kala aaminsan ama boodla ha ka soo jeedaan ama boorama ha ka soo jeedaan inaad sawir dhaba ka siiso Soomaaliland meesha maanta ay marayso waa hadal wanaagsan Soomaaliland xisbiye u gudubtaa tiri xisbiyada annagu markaanu saa u eegno dee saddexda xisbiba saddex nin oo ilmaadeera hor kacaya waa run in dadka kale haddii dee ay abaabul waqti hore geli lahaayeen inay iyaguba xisbi dee nin madaxa uu soo bixi lahaa ilaahay ha u naxariistay qaybe ayaa arrimaha wadwaday bariga laakiin waxaan u malaynayaa inaynan meel weyn u gaadhin arrimaha waxaan ka hadlayaa xisbiga la furayo waxaa ka dambeeyey nin kale oo dhalinyaro kaysan la yidhaah oo isaguna tareegareeyey dee markaa horta waxa weeye saddex nin oo ilmaadeera ayaa saddexduba hadday doonaan noqon kara xisbiyada u talin kara laakiin waxay ku fiican tahay dadka daafaha ama degan dee la degan beesha dhexe iyaga naftoodu inay xisbi iska dhex arkaan ama xisbi qura aad arkaysid in ay jacayl badan u qabaan iminka xisbiga ucud maalin dhaweyto oo aan dhinacyo badan ka eegay hal qof oo bari kuma jiraba totally haddana Faysal Cali Waraabe markuu saxaafadda iyo media soo hor istaago markuu hadlayo dee wuxuu iska dhigayaa nin afkii bari ama doonayo inuu bari wax u qabto haddana dadkii uu isagu ururkii ama dee xisbigii uu haystay hal qof one person kuma jiro marka labadan xisbiye kale walaahay deemika waxaad ogeyd in muddo xisbiyadu inay isjiijiidanayeen waxaad halkan horta uga mahadnaqayaa maxkamadda sare muxuu ahaa ninka madaxda u ah oo si aad iyo aad u qiimo badan u soo afjaray isaga dastuurku ha dhigo laakiin dee waxa weeye decisionkuna waa decision makerkuna dee waa arrin meesha ku jirta oo waxa weeye iyadoo dastuurku dhigayo decision maker ahayn ama nin go'aan qaadasho leh wuxuu waqti dheer ba ku qaadan kartaa laakiin nin go'aan qaadasho leh
ayuu ahaa. waxaan doonayaa garaad imika adigu Soomaaliland baad joogtaa bal waxaad ummadda uga warantaa ujeedada safarkaagan markaa maxaalad isu soo dabaalida arinta Buuhoodle ayaad halkan u timid bal ummadda u sheeg. niyahow anigu dadkan gobolada bari ka yimid labay u kala qaybsamaan. nini waa nin telefoonno badan oo loo diray iyo dhibaatooyin badan dawladdu kala kulantay oo marka dambe sida idinku ama halhaysidee waa la soo xirageliyey. anigu kaameey anigu iskay baan diyaarad u soo raacay adeer oo waxaan ku jiraa gruubka iyagu intay diyaarada soo qaateen qadiyadanna aaminsan oo aanan qof la soo bariyey oo hebelow kaalay hebelow meeshana waa meeshaadii waa meeshii aan ku dhasho cid ii sheegi kartaa ma jirto. anugu markaa waxaan u imid markaa hadalka u soo noqdo in arrimahan bari nagu soo noqnoqda dadka qurbaha jooga horta waxay aad u eedeynayaan ma aha dawladda ma aha cid kale waa dadka halkan beesha dhexe madaxda uga dadkii 4 bilood indhahayga iyo macallina waa dhex galay waa madaxda naftoodii waa la sheekaystay ma tilmaami kartaa kuwa ragga London markaa aanu joogno fikrad kale aanu ka haysanay maantana aanu aragnay indhahayaga raggaasi hawsha iyo baaxadda hawshu intay leegtahay. horta ninka baasha la yidhaa mahadnaq baanu soo jeedinaya waa baasha baarlamaanka cabdirasaaq mahadnaq baanu soo jeedinayaa cabdirasaaq khaliif wasiirada kale ku degdegi maayo waan sugayaa wakhtigeeda. wasiirada kale ku degdegi maayo waayo Soomaalidu waxay yiraahdaan haddaad qof aanan ammaan lahayn ammaan dusha kaga tuurtid waxa laga yaabaa inuu isfasaqayso. xagla toosiye caafimaadka laakiin arintu caafimaadka adeer way dhaafaysaa. arintu waxay noqonaysaa war dadkan ma kasban kartaa xagla toosiyow magaaladan Buuhoodle aad u dhalatay 4 koonaba ma kaga soo wareegi kartaa mise daaf baad ka degan tahay. su'aaluhu way badanayaan. baashe maxamed faarax baashe waxa weeye waana reer Laascaanood soo maadan garan oo Laascaanood any minute waa tagaa mashruuciyuu geeyaa waana reer Saaxdheer waxaan ognahay in ay tahay meesha ugu weyn ee Khaatuma degan tahay. iyadoo Khaatuma joogto ayuu intuu tago baashi wuxuu doono ka soo fulay. waa sax garaad gabagabadii baynu marnay hadalkaagan ma u muuqdaa mid xil doona. anigu London wax kasta waa ku haystay in aan dadka 23 sano ayaan anigoo qurbaha jooga Soomaaliland ahayo adeer meesha ma soconayso. waxa weeye kuwii shalay aanu ku soo dunay ama keenay oo aanu annagu Soomaaliland ka dhignay oo waxba magacyadooda aan sheegayn ayaan xitaa iyaga naftoodii ay nagu leeyihiin war hebelow halkaana hawl fiican baad ka wadaa maxaad noogu iman weyday. markaa arrimaha horta i keenay waxa iga badatay warniyo maxaad noogu iman weyday. anigu Allahumma salli ala Muhammad multicultural baan ahay oo Boorame waxa weeye waa qaraabaday magaalada waa ku dhashay nin garaadaan ahay reer Burcaan haddaan doono sii noqon karaa reer Laascaanood baan dadka rag badan oo aanu kaftano oo madaxa ama halkaan noogu yimaado madaxda badankeeduna halkaana waa degayn halkaana waa degayn. kelmaddaas waxa iga badatay maxaad noogu iman weyday. anigu markaa imid haddeertana waxaan ku jiraa in dawladda wixii anigu aan la qaban karo hadday xag nabadgelyo tahay iyo haddii xag kale ay tahay inaan la qabto. midna waan idiin sheegayaa dawladaha mid kastaba ha ahaatee Cabdiwaraabe ayaa waxa la Sheekh Cabdiwaraabe wuxuu yiri Xaaji Cabdiwaraabe wuxuu yiri war anigu dawladdii timaadaba niman yahow waan la shaqeeyaa. marka horta waxan mucaaradka anigu horta u dhalashaba malihi oo wax weeye dadka qaar baa iska jira intay nool yihiin weligood mucaarada. marka anigu dawladda waa run xiriir fiican baa naga dhaxeeya
saaxiibo badan baan ku leeyahay madaxweynuhu waxa weeye madaxweyne 5 sano uu joogay wax weyn oo la taaban karo qabtay labadan sano hadeerta loogu daranay anigu waxaan ku talinaya ergaabo weyn oo aragnay iyo wadadeedii oo in yar u dhiman tahay waxaan dawladda kula talinayaa labadaas sanadood waa waqti aad u badan laba sanadood waqti aad u badan in ay hadeerto oo ready way bilaabeen 3 bilood ee tagay dawadugeed xirsi iyo baashe iyo wasiir muxuu ahaa khaliif inay lascaanood tageen mashaariic badanna inay ka fuliyeen oo airportkii lascaanood la hagaajiyay wadooyin badan in la hagaajiyay anigu waxaan uu leeyahay dawladday labadan sano doorasha idinku soo socotee ka faa'iideysto oo arrintiina bari geeya dadka qaar bay isweydiinay aabbahoodii ka dhawaajiyay inuu nool yahay oo halka khaatum hawlu ka wado marka garaadnimadii ma aabbahaya dhowr nin oo suxufiina waxaan ku yiri war waxaad tiraahdaan injineer Cabdinaasir Garaad Abshir ha oranina Garaad Cabdinaasir taasoo baan adeer idin saxaya anigu markaa de aabbahay baa taliya oo garaada anigu nin aqoon-yahana oo uun raba inta dadka ka dhiman xitaa hay ugu noqoto inaan isaga iyo Cali Khaliif u tago oo aan nabadgelyo kala hadlo anigu arrimahaygu u nabadgeliyo ayay u badan yihiin waana arrin aan soo dhaweynayo laakiin anigu tanaad weydiisay ma isaga xukunkii haya ma adeer isaga haya maadaama dhinacna aad qurba joog ka tahay inaad wax yar dur istaagto maalgashiga horumarka waddanka ka socda haday tahay wax qabadka xukuumadda xagga maalgashiga Somaliland waxaan u malaynayaa magaaladii ugu horeysay maalgashigu ku ama qurba joog maalgashada Hargeysa Boorama ku xigtay berbera hadda xawaali waxay ku socotaa xawaara aad u dheereynaya burca ku xigta adigu sida loo kala dambeeyay meelba meel ku sii xigta qurba joog aad u fara badan ayaa wadanka sanadkan yimid maalin dhaweyto ayaa tirakoobka la sheegayay 16,000 16,000 markaa waxay ku tusayaan waxa laga yaabaa xamar 16,000 inayna tegin ama dadkii koonfur dhashay waxa laga yaabaa wax 800 ilaa 900 haday tagaanba marka numberka fara badan halkan imanaya wuxuu ku tusayaa koow nabadgeliyo wuxuu ku tusayaa dhaqaalihii wuxuu ku tusayaa dadkii oo niyad sami ku yimaada niyad samina kaga taga marka taas horta dawladdu waa ku mahadsan tahay haddii ay tahay airporto haddii ay tahay wadooyin iyo haddii ay tahay waxa dadka daruuriga u ah dadku ay telefishinada kala socdaan iyo horumarka marka wadanku horumar fiican ayuu ku talaabsaday waxaan se u malaynayaa de horumarka gidi lama wala oran karo dawladdu qayb bay ku leedahay qaybta kale waxa kula qurba joog marka haddii qurba jooga iyo dawladdu iskaashadaan wasiirka arrimaha dibaddana de khudbadiisii maalintii dhaweyto waa daawanaysay muxuu ahaa xafladii qurba jooga aad buu u soo dhaweeyay qurba jooguna de wuxuu yiri waa qayb weyn oo baaxad leh oo ka tirsan wadanka waana safiiro aad mahadsan tahay injineer Cabdinaasir Garaad waxaan ugu mahadnaqaynaa qadarka waqtigiisa qaaliga oo noo horay aad baad mahadsan tahay